بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد walaalyaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii aan ugu talagalnay inaan isku xusuusino sidaan uga faa'iidaysan lahayn bisha barakeysan ee ramadaan labadii xalqadood ee xalqadan ka horeeyey waxaan kaga soo hadalnay mufatiraat siyaam maaragtay soomka waxa buriya ama jabiya afar qaybood baan soo tilmaanay afartaas qaybood aljimaac inzaalu lmani alaklu washurb iyo ma bimacna alakli washurb afartaas waxay ku jiraan labadii xalqadooda hore xalqadan waxaan sii wadi doonaa waxyaabihii qofka ka jebinayay soonka ama ka burinayay qaybta shanaad waxa weyn ikhraaju dami bilxijaama qofka in dhiig yani la toobo oo dhiig sidaasi looga qaado maxaa yeele xijaamadu dhiig badan baa qofkii yani jirkiisa lagamogtahay laga nuugaya ama laga soo saaraya marka dhiiggaasi badan oo laga soo saaray qofkii waxay u keenaysaa dacfi iyo taagdarri bay u keenaysaa marka xijaamadu waa soonka ayay burisaa sida nabiga caleyhi salaatu wasalaam ka sugnaatay afdara alxaajimu walmaxjuum qofka yani wax toobaya kan la toobayaba way afureen marka qofna yuusan qof toobin qofna yaan la toobin marka bisha ramadaan lagu jiro toobiki iyo wixii lamid ah loo dhigto bisha ramadaan wixii ka dambeeya marka arintaas iyadana waxa weeye dhiiggaasi badan ee qofka ka baxaya oo ma aragtay uu la daciifayo yani waxay keenaysaa in uu markaa qofkaasi soonkii uu ka buro wey inuu soonkii uu ka buro waxaa lamid ah haddii qofku dhiig ugu tabaruco dad dhiig baa laga shubay badan masalan litir ama nus litir ama dhiig markaa qofkii dacfi ku daciifnimada oo yani ku dareemi karo dhiiggaasi laga qaadayo ee laga shubayo soonkii ayaa markaasi ku jabaya laakiin dhiig kale oo yani dhaawac gaaray uga yimid sida masalan goos laga saaray iyo muxuu ah dhaawac gaaray iyo kaa noocaas oo kale dhiigga noocaas ku yimid soonka kuma uu jabo qaybta lixaad waxa weeye attaqayu'u camdan qofka in uu ulakac isu matajiyo isaga in uu ismatajiyo ama sabab u noqdo inuu matago yani ma aha wax isaga ka xoog badiyey oo uusan yani ma aha haddii ay tahay yani wax isaga awoodiisa ka baxsan oo matag soo dhaafay kuma jirto laakiin in masalan shay uu ursado oo ugu talagalo inuu ismatajiyo ama farta afka geliyo si uu u matago haddii uu sidaas sameeyo soonkii waa ka jabay isagana nabiga caleyhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi xadiis saxiixa oo abu daawuud iyo tirmidi iyo keyrkoodba ay soo saareen wuxuu yidhi man daracahu lqayu falaysa calayhi qada waman istaqaa'a falyaqdi qofkii uu soo dhaafo matag yani isaga aan sabab u noqonin qofkaasi qadlo korkiisa ma aha soomkiisu waa sax laakiin qofkii ismatajiya isaga waa inuu soo qadaya maalinkaasi soonkiisii waa uu jabay wey qaybta ugu dambeysa toddobaad waxa weeye khuruuju damu lxaydi wannifasa yani wanifaas khuruuju damu lxaydi wannifaas yani nifaaska iyo damu lxayd waa dhiigga caadada ah ee haweenku ay helaan bil walbaba nifaasna waa dhiigga dhalmada ee ma aragtay haweenku markay dhalaan ka yimaado wey hadday labadaa dhiig ay yimaadaan haweentii soomaneed soonkeedii halkaasuu ku jabay marka waa in ay maalinkaasi soo qadaysaa xataa haddii iyadoo yani 5 mirar ama 2 mirar ka hartay qoraxda dhicideedii uu yani ku dhaco waxa weeyaan waajib uu ku yahay inay maalinkaas soo celiso maxaa yeelay maalinkii oon dhammaanin buu dhiigga ku dhacay maalinkaas inay soo qadayso ayay noqonaysaa marka haweenka markuu dhiigga ku dhaco yani nifaaska way soo qadlaynayaan soonka way soo qadlaynayaan yani ma aragtay laakiin salaadu ma ay soo qadlaynayaan sidaasna waa sida diinta ilaahi subxaana watacaala ayna bartay yani fudeyd iyaga loo fududeeyey maxaa yeele soonku isagu waa sahlan yahay salaadu yani salaaro fara badan baa yani ay maogtahay dhaafaya inta ay
xaydka ku jirto ama intay yani dhiigga dhalmada ay ku jirto. sidaa darteed yani qado lagama rabo. toddobadaasi qaybood aad iyo aad bay muhiim u yihiin in la ogaado, in ay yani qof walba sooman uu ogaado. intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa xalqadana. wajazakum allahu khayran calaa xusni istimaacikum. wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.